الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبية طبنات هي كتاب كيني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله. أمور تعين على الصبر وأرمو كوكو عن سينا إنا صبرته إنه قفكو صبره أرمو إن شاء الله تعالى قعن كوكو سينا waxaa la yidhahdaa sabirka haba noqdo mid shaaqan kariihan cala nufuus, yacni sabirku waxaa dhab ah inuu adag yahay, inuu nafta ku adag yahay, in naftu mararka qaarkood ay ka rayso, laakiin in la sameeyo oo la sabraayay waa mumkin. wuxuu ka kooban yahay sabirku laba arrimood, cilmi iyo camal. inuu qofku horta cilmi u leeyahay maxaa sabirka ka imanaya, dayib haddana uu shaqo ahaan iyo camal ahaanna uu u fuliyo. labada arrimood oo cilmiga iyo camalka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa dhammaan adwiyada oo qalbiga dawadiisu labadaa arrimood bay ka timaadaa iyo badanka. qalbigu daw u baahan yahay, badanka iyo jirkuna daw u baahan yahay, labada shay bayna ka yimaadaan. waxaa lagaba maarmaan ah marka in lala yimaado qayb cilmiya qayb camali aba inuu qofku la yimaado marka uu rabo inuu la yimaado sabirkan, waana daawada anfacaysa ugu fiican sidaasay noqotaa. cilmi markaan leenahay qaybta cilmiga ah ama cilmun waa idraak, inuu qofku og yahay shaygan la amraayo oo sabirka khayrka ku jira, nacfiga ku jira, wanaagga ku jira, inuu og yahay. waa sidaa u basiidkeeda inuu og yahay haddana shayga laga reebayo oo sabir la-aanta ah, sharta ku jirta, dhibka ku jira, nusqaanta ku jirta, inuu og yahay. markuu qofku ogaado labada arrimood ayaa waxaa habboon in lagu daro oo cilmi iyo camal, haddana in lagu daro alcaziima alsaadiqa walhima alcaaliya walmuru'a alinsaaniya wax la yidhaahdo. in lagu daro caziimo saadiqa oo dhab ah, shaygii waad ku sabirtay, cilmi waad u leedahay inuu fadli badan yahay, waad og tahay. inaan la sabrina dhibka ay leedahay baad og tahay. intaa keliya marka mehe waa in lala yimaado go-aan, alcaziima saadiqa, go-aan run ah waa inuu dhaco. go-aanka runkiina ma imaan karo ilaa inuu qofku ku baraarugsan yahay alhima alcaaliya, hansare waa inuu jiro, hansare waa inuu jiro oo wax weyn aad rabto inaad qabsato ood xaqiijiso. dayib, muru'a waa inay jirto, iyo waxyaabaha safaasiful umuur, meelaha xunxunka inuusan qofku uusan rabin in lagu arko. haddaba waxaa la yidhahdaa markii arrintaasi dhacdo, yaa xasala lahu sabru wahaanat calayhi almashaq, markaasaa qofku gaadhaa inuu sabro, markaasaa qofku gaadhaa naftiisu inay aqbasho mashaqada iyo dhibaatooyinka oo waxba ayna la noqonin. marka sabirku arrimahaasu u baahan yahay. insaanka laa yastagni can isabri fi xaalin min alaxwaal baa la yidhahdaa. marna qofku sidiisaba kama maarmo inuu sabro, maadaama qalinka ilaahay waxa la qorayo uu dushiisa ku socdo, takliif la saaray, qofku ka maarmi maayo inuu sabro. maxaa jira, wuxuu u dhexeeyaa mar walba arrin ay waajib tahay inuu sameeyo oo uu fuliyo, iyo arrin ay tahay waajib inuu ka tago, bimacnaa arrin inay ka fogaado la rabo oo uusan la imaanin, iyo arrin kale oo ah sabirka oo ah qadarka oo isaguna dushiisa ku socdo mar walba oon lagala tashanaynin. waa awaamir lagu amray inaad samayso, wax laga amray inaad ka tagto, iyo wax kugu dul soconoo adigu awoodba aada u lahaynoo qadarka ilaahay kugu soconaya, iyo nicam ilaahay kugu nimceeyey oy waajib tahay inaad ku shukrido allihii kuu nimceeyey. haddii xaaladdu ay sidaa haddaba tahay, waxaan marnaba qofka sabir in laga waayo. fasabru laazimun lahu ila almamaat baa la yidhaha, ilaa geeri laga gaadho
waa inuu qofku sabirkiisa uu la yimaado ilaa geerida laga gaadho. waa inuu rabo qofku inuu noqdo qof sabir la yimaada. maxaa jira haddii uusan sabrin xaalad ka mid a xaaladaha iyaga ah, waxba u suuroobi maayo. sabirka ayayna umuurta kugu sahlanaanaysaa, oo shaygii qaraaraa macaan kugu noqon dhex mari kartaa, oo shaygii adkaa kugu sahlanaanood ku samayn kartaa, oo shaygii weynaa ee buurta la ekaayo kugu yaraanayaa ood geli kartaa. taasaa noqonaysa qofku wuxuu marka mar walba uu higsado. as'alu allaha subxaanahu watacaala biasmaa'i ilxusna wa sifaati alculaa, waxaan ilaahay ku weydiisay magacyadiisa inuu nagu daro dadka saabiriinta ee shaakiriinta ah, ajarkoodan uuna siiyo. wajazaakum allahu khayr, baaraka allah.